aqoon isweydaarsigan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay shaqaale ka kala socda wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedyada dalka. Aqoon isweydaarsigan inta uu socdo ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa baahiyaha biyaha ee dalka ka jiro iyo sidii loo tayeyn lahaa biyaha. Agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Mudane Cabdiwaaxid Axmed oo ka hadlay daafurka aqoon isweydaarsigan ayaa ka warbixiyay waxyaabaha lagu falanqeyn doono aqoon isweydaarsigan. maalmahan waxaa inoo socday workshopyo kala duwan. tanina waxa ay tahay mid ka mid ah workshopyadii ay wasaaraddu hogaaminaysay dhiirigelineysay oo ku saabsan arrimaha washka. maanta halkan iyo beritoole oo jimca waxaanu ku qaadan doonaa laba shay oo muhiim ah. labada shay oo muhiim ah waxa ay tahay operational wash, yacni sidii looga shaqeyn lahaa shaqooyinka xaaladaha washka ayaa iyadu halkan lagu faahfaahin doonaa. washka shaqadiisii waxaa ka mid ah management of wash ka mid ah, waxaa ka mid ah infrastructure-ka ama dhismaha qaab dhismeedyada washka in iyaga laftirkooda yacni laga shaqeeyo. waxaa kale ka mid ah maxaan idhaahdaa maamulka iyo managementiga washka, taasi in loo yeesho awood haddii problem ama dhibaato ay ka dhacdo arrimaha washka sida looga jawaabi lahaa oo marka kaasi looga shaqeyn lahaa ayaa la baranayaa. keliya cilmi keliya oo aan idinku idiin soo gudbinayno ma ahan, balse laakiin waa isweydaarsi. idinkuna waxaad inoo sheegi doontaan hadduu ilaahay ka raali noqdo aan isdhaafsan doonaa. barnaamijka waxaa ka mid ah group discussion baa ka mid ah, koox in laisu qaybiyo oo marka kaasi laga wada shaqeeyo aragtida iyo ra'yiga ku saabsan operational maintenance. wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheeraad ah ugu jirto sidii ummadda Soomaaliyeed biyo nadiif ah u heli lahaayeen. Cabdullaahi Maxamed, Jubbaland TV, Muqdisho.